farxan marka hore astaan sports waxaad soo saarteen shuruudihii lagu dooranayay tababaraha xulka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland adigoo ah gudoomiyaha dhanka xulashada xiriirka u xilsaaray marka koowaad bal waxaad noo yara sharaxdaa shuruudahan 10 qodob aad soo saarteen ma waxay waafaqsan yihiin hay'adaha caalamiga ee kubadda cagta sida FIFA CAF وكواسي هوسي مادان شروطهاني مستقار إذا أد سيدنا أدو سمسين بشروطهان. بسم الله الرحمن الرحيم وكده وهاي أستان سبورتس horta shuruudaha soo saarnay waxa weeyaan wax mataqaanayo gudi ka fadhiisto ka wada hadashay oo 7 xubnood ilaa 8 xubnood ba ka wada hadlay oo ka fadhiistay waa run su'aal fiican bay weydiisay dadku waxay isweydiinayaan xagee shuruudaha laga keenay horta maadaama uu cusub nahay oo mataqaanayo dalkeena ay ku cusub yahay in qaran loo sameeyo amba macallin qaran loo sameeyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay yeelato waxa isku taxaluujinay in fududeyno shuruudaha oo shuruudahan iminkaan soo qornay anagu shuruudaha imika uma arkayno oo waa wax yar oo fudud oo kooban oo dadka ka bixi karayaan sidaa darteed waa wax anagu isku keenay weeyaan oo fikir anaga naga yimi weeyaan qodobka koowaad hadaan dul istaago waxa tiraadeen macalinku waa inuu hada macallin muwaadina kubadda cagtana waxna ognahay inaanay xuduud lahayn oo cid walba ay macallin noqonayso macallimiinta ajaanibka inta badan loo dhiibo kooxana ay ku guuleystaan ama xulo maxaa ka hor istaagnay macallimiinta ajaanibka ay buuxiyaan booskan waa su'aal wanaagsan weeyaan waxa ka hor istaagay horta waa aniga ku sheego bilow baan nahay waa markii koowaad ee lagu dhawaaqo mataqaanaayay aan idhaahdee in la yiraahdo macallin ha loo xulo marka shuruudaha na xidhaya ee ugu diidnay amba aan kaga hor istaagnay mataqaana macallimiinta kale ajaanibka waxa kamid ah dhaqaalihiinu ma saamaxayo oo ma soo iibsan karana macallin maanta mataqaana ajaaniba oo lacag inta lama siin karo waayo macallinku de shuruud bisna wadanayaayo markii aad u soo bandhigto mataqaana macallimada amba uu ku guuleystaba de kharashkiisi iyo mataqaana hawlihiisi way adkaanaysaa aan ka baxno marka shuruudaha hor yaala waxay yihiin inaanaan mataqaanay qaabil karin imika maadaama bilownahay macallimiinteenan mataqaana xaaladda wadanka og xaaladda ciyaaraha og inaan mataqaana ciyaaraheena aanay horumarsanayn xaaladeena ayaa marka mataqaanay naga hor istaagtay inaanu macallin ajaanib aan doonano waxa qodob kale ayaa sheegaya inaad isaguna ay kamid ahayn shuruuduhu macallinku waa inuu safri karaa waliba gobol kasta uu tagi karaa marka safarkaas ma wuxuu imanayaa markuu uu soo gudbisto xogtiisii oo la aqbalo ayuu safarka ka howlgali karaa mise ka hor ayaad leediin ha ka horgalo bal qodobkaas adoo dul sharaxayo dul istaagay maxad daawadaasha la wadaagay waa su'aal muhiim weeyaan horta aan ku qeexo qodobkaasi wuxuu waafaqsan yahay macallinku marka uu helo lacala maaha wax laga hor dhacayo macallinku marka uu helo mataqaanayay macallinimadii uu noqdo macallinkii xulka qaranka waa inuu tagi karaa marka gobolada kale waa inuu tagi karaa Boorama waa inuu tagi karaa Gabiley waa inuu tagi karaa mataqaanayay Hawd waa inuu tagi karaa isoo sheeg Burco Laascaanood Ceergaab saas waa inuu socon karaa marka qodobka waxaan u soo dhignay macallinku inaanu de ku soo koobnaan caasimadda amba Hargeysa oo kaliya aanu joogin oo de uu iska dhaxarkan goboladii kale waayo waxa jira ciyaartooy fiican oo gobolada kale ka soo jeeda oo aad u fiican oo de Soomaaliland ah marka sababtaas aan u nidhi qodobka ugu soo dhaxdarnay oo aan u nidhi mataqaanay macallinku ha soo maro gobolada oo dhan si uu soo arko ciyaartooyda ka anfici kara macallinkuna isaga de ikhtiyaar u leh marka cid uu soo xulanayo marka ma xiriirka safarkiisa qaabilaya taa xiriirku miin soo gudbiyeen kulli macallinka arrimihiisa oo dhan xiriirka kulli mataqaana ka jawaabi doona insha Allah way hadii 10 shuruud dhowr macallin ay isku mid noqdaan oo ay intay soo wada xariistaan oo dhan ay sim ay haadaan ama isku mid ay haadaan maxaad ku kala saari kartaan qodob aad ku kala saari kartaan wali waraaqdiina kuma qeexnaa taa maxaa kaga yaala waa runta waxa weeyaan horta dadku aad ma fahansana horta qodobadan aan soo saarnay maaha qodobo aan qofna ka bixi karin qof kasta oo ka bixi karaya dadka da'du xidhaysa mooyee waxaan u soo saarnay qodobadan in dadka aan u fudaydino laakiin waxa lagu sii kala saaray waa interview weeyaan interview baa la isugu yeedhayaa inta macallin la soo xareysatay interviewgoodii halkan baa la soo fadhiisinayaa CV-gooda la eegayaa kadib baa su'aalo la weydiinayaa markaasaa mataqaanayay dee macallinka la xulanaya oo guddidu ciddii isla garato ayaa lagu ansixinaya marka insha Allah marka ilaa iyo goorma lagu soo gabagabeynaya macallimiinta qofka ugu dambeeya oo soo xareynaya waqtiga ma sheegteen gabagabada adigu 15 cisho ayaanu u qabanay maanta aan soo saarnay ilaa 20ka bisha insha Allah baa mataqaanayay ay soconaysaa marka aan ururino xogta aanu helo mataqaanayay CV-yada oo dhameystiran
bisha 20-keeda insha Allah markaan soo qabano wuu xirmaya 20 wixii ka dambeeya markaas la isku yeerayaa macallimiinta insha Allah kadib markaas interview lagu kala saaraya macallimiinta insha Allah macallimiinta qurba jooga waxa jira macallimiin qurba jooga oo dalka ka maqan iyaga laftigoodu xagee ku soo diri doonaan xogtooda كلي أنتي جوكتوا من هرت ده أنا وكقبلنا وعي جوجا وما انترفيو كقاعدنا كل هرت وحفي عن وبعد ما أنا يقارن كسمال لأنه ده ولي وشرية مركز ثاني سيدا ممكن كل سكة يعني حدثهم ويان ده وحلا جاي أبى مركز لين حل الدونا أما مركز معلمي كلا أي صاع متقنا أي صاع عطسن دوران مركز كل ده قارن كوشرية إن شاء الله. عضو ما سنت فرحان.